السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقهرين الله يا نم هذا نقينا دمانتين إلهي بما هذا ودن له آخرية دون بقى يوحك استول لقم هديه الله باله الحمد لله رب العالمين. المسجد كان أنو بحني مجعيسى مصعب بن عمير وقلنا مقعدرني صحابي وينا مصعب بن عمير وحاو بلامي هوشي سوحي بلامتي أما لا نجح دقي بشي شعبان سنة كي يكون أفر بقول أفرتني أفر هجرية ورمضان كهر مركا لبر رمضان بوسوق لي والسنة دي بلو أيو نغنية وحاو بلامي رمضان تي إن دافتي تي كوريسي أيو مدة كوري وحاو سعودي سنة دي بلا يو سعودي مسجدكو وحاو صور ماضي أما سوق بجبوبي مساجدكو بيشنا إنه كشرنو ذو القعدة كنا أفر بقول شني أفرت هجرية إلهي بانا مهضله مساجد كان وحاو كبل عمي فكرتيس وحي كبل عمتي ده دوني إني لبحان يعني صدقة جارية ميل قليان مركا دد يوغاس يسمعوا جين قف دول هيا قف دقالة هيا مركا هديان ونهاي هيا خيري سمع هيا يسوق هرني دد كاس وحاولنا كبل عمي لعجها أن وهيني دد يوقف أنه هل كان كحسين دول كان بحية دول كانوا شاب بلورة وبلورة كحوي لبيه تون متر لقول بتلا لبيه تون متر عبرهان وحوي دول كان ومساجد كوحها شنية لاتن أفر لاتن لقول بتلا صدر دول كانوا حلب بحضي قبله له خيرة وكان ذا شوكته ومقعد الليلة فاضمو علمي قاس فاضمو إلهي خيرها كوابا المريء دول كانوا حيقول تلقى شيء المسجد لقريسه أنا قلنا هديان إنه هاي هيدا خيرك السمع تطبن العجوه هيني العجتي وجوه الرئيسية أنه كبر وني وحي هيد سنية $8 شركة دي بنو قدون سيني يدولكي ساسو اسمه كبلام مركي أنا وشاقني الشركة دي سيسا ومقعد اللي هذا سبوناك اللي هذا أنا كل يوم مساجد شمع أيام دونينا إن يو دكسي القرآن كانوا كبرتوا الرجل يدبر بليه وإنتها ككوبان مركي أنا وشاقني ويقيميان وحنا يرادا وحنا كل سنة لعجاريسة بقول يكونتم كنوا $. الحسية أو حسوسي عبد القادر هو يقدر دول كان بحسي دول قرا ما يبحن فاضمع المقاس واحد بحسي دول كان أو $5 أفري لا تلقوا بتصدر متر إيوه مرة صوب بحسي $20 كنوا iyo maray bixisay $3,000 iyo maray namadeedu ururiyeen $3,000 adigu lacag ku dhawaad 6 iyo $6,500 ay hooyadaas bixisay ilaahay khayr ku abaal mariyo aan idin sheego aan u ducayno shirkadu muxuu ahaa waxa weeye aan shaqul ku lahayn waxa weeye sida roog oo kale wuxuu ku kacay 3 xidhmo roog ayay wuxuu ku kacay rooga ugu badnaayo $4,650 ayuu ku kacay $150,000 waxa noo dheer oo aan ku darnay lacag gaaraysa $15,000 waliina hawshu way socotaa oo qalabayn buu masjidku wali u baahan yahay ilaa hadda waxaanu bixinay $160,000 hadana lacag baanu haynaa oo wali masaajidka soo hadhay alxamdulillaah rabbil caalamiin meel waxa ku jirtay akoon waxa ku jiray $5,000 meel $7,000 أنت وحوي حيسكون قنيسة $2,000 أيان وهينا ولي مسجد وأنا بحن وحككوبية هاي لبقى يبود بكوبية لبقى يبود بقومي مثلا قيبت اللي قلت كده يدرس ميال رأسا أو لوجو براني القرآن كريم كان لح قري أو كلا أفر فصل لبض دمر كوجار تهاي لبنا رجع وقارت هاي أو
ama inamada laba u gaara iyo hablahana laba u gaara oo quraanka kariimka in lagu barto aan ugu talagalnay afarta labada kale guri mid waxa waxaan ugu talagalnay mas'uulka masjidka joogaya ama muadin ha noqdo ama imaam ha noqdo qolkii uu seexan lahaa qolka lixaadna waxaan ugu talagalnay inuu noqdo xafiiska laga maamulayo dugsiga quraanka waxa uu dheerinta dumarka waxaan u sameeynay goob u gaar oo ay ka weysteystaan kana helaan xamaamkoodii raggana waxaan ugu talagalnay goob ay ka weysteystaan kana helaan xamaamkoodii ama musqulahoodii musqulo u gaara dumarka iyo weyse u gaara iyo musqulo iyo weyse u gaara rag ayaan sameeynay way kala xidhan masaajidka wali umaanu sameyn imaam iyo macallimiin quraan waa waru bushaara dadka xiiseynaya inay masaajidkan mas'uuliyadooda qabtaan waxaan u qaban weyn waxaan doonaynaa ka baaran degno qofkii habboona inaynu xulanno ila al'aan umaanu samayn taana waxaan doonaynaa ogeysiino dhammaan cid kastoo danaynaysa masjidkan waxaan doonaynaa cid habboon oo quraankii si wanaagsan u dhigaysa mas'uuliyadda masaajidka qabanaysa ayaan doonaynaa ka baaran degno marka billa dib ha u dhacee waxaan doonaynaa si wacan uga baaran degno marka waan u furan yahay waan kala xulanaynaa odayaal aan ka mid ahay ayaa insha Allah oo u gudiyo masjidka ayaa soo saari doona insha Allah marka waxa weey taasina waa taa war kale bushaara baan doonay halkan ka sheego war kale bushaara waxa weeye dugsiyada quraanka masjidka waxaan ku tala jirnaa biidni Ilaahi al-Kariim ama go'aansanayba in quraanka masjidkan laga baranayo inuu noqdo lacag la'aan loo way maayo macallimiintan wuxuu raadinayna haddaan nahay hay'adda khayriga same gudbiya waxa arkaysan magaca halka waxa ku qoran hay'adda khayriga ee same annaka la baxnay markii ugu horeysay waxaan shaacinaynaa haddii aanu hore u ahayn barnaamij warbaahineedka kaalme kuwan waxa aanu shaqadii aanu haynay barnaamijkii khayriga ahaa ee muddada 10 sano soo socday ilaa 2014 ayaanu magaca kaalme kuwan bixinay bishii koobaad 2014 waxaanu shaacinaynaa maanta oo ay taariikhdu tahay 16 Dhulqaada 1445 hijriya in aanu magacii ka wareegnay oo magac warbaahineedkii kaalme kuwan ka wareegnay oo u wareegnay hay'ad khayriya oo magaceeda la yiraahdo same in badan ayaa waxaan nala ku yiri waliba si gaar ah aniga Abdulmalik Sheekh Musa Aldon Abdulmalik barnaamijka khayriga ah samafalkaad ku fiican tahay barnaamijka ka shaqee barnaamijka horumari haddaba waxaan u sheegayaa dadkii inta badan ilaha arrinka waxa weeye barnaamijka khayriga ah baan horumarinaynaa hay'ad khayriga aanu ka dhignay ka qayb qaata horumarkiisa waxa kale mashruucan masaajidka waxa ku xigaya haddaan nahay hay'adda khayriga ee same waxa noogu xigaya oo aanu gacanta ku haynaa lacag in ka badan $140,000 oo aanu ugu talagalay inaan muxuu hayay laba ceel ku qod ceel waxaan hore ugu qiimeynay $100,000 waa haynaa $40,000 kalena ceel labaad baan haynaa marka mashruucan mashruuca xiga ceel biyood riiga ayaanu qodi doonaa oo aan ka qodi doonaa meel baahi ay ka jirto hawluhuna saas ay u soconayaan sanadkii dhaweyto 2022 anoo xiran oo ku xiran xabsiga dhexe ee Hargeysa ayaan riyooday riyo shaqadan ku saabsan ma ku riyooday waxa weeye anigoo marka masaajid la gacanta kuma hayn marka waxaan ku riyooday anoo lacag masaajid ururinay oo dadka ururinay marka waxaan dhex marayay suuqyada suuq meel suuqan dhex marayay dad meheradooda nooca lahaa masaajidka maxaad ku darsanaysaa lacag masaajidka ayaan iyo dad isku qoray ayaan lacag ka soo qaaday nin aan lacag ka ururiyay baan ayuun isweydiinay masaajidka qiimihiisa iyo waxa soo markaasaan ku wulaniyo madgabiisa wada qaadatid wada bixisi isasi baan ku isasi kelmaddaas aan xasuusto isasi yani adigu lacag waxaan waa waxa aad isasiinaysid marka isasi oo naftaada si waxaan aad la baxaysid waxa weeye waxa naftaada siinaysid isasi marka riyahay masaajidkana gacanta kuma nahay daqaadir bay xasuusiyay ma dhaweytay wiil sheekadii ka sheekay runaantiina waxa weeye waxa dhacday inaynu sidii u ururino
waanu dadka ku dhiirigelinoo inay bixiyaan kharashka marka SSC waxa uu noqonayaa barnaamij hoos yimaada barnaamijyadan ka shaqeeyno marka naftiina waxaan aad la baxaysaan idinka SSC-naye intiina halkan joogta iyo intay naga maqanba waxaan aad bixinaysaa oo waxaad naftaada maxaa siinaysaa SSC Allah ku barakeeyo ilaahay wuxuu ku ilaahameeyay oo sharaf ku siiyay oo aad u diran tahay inaad dadka iyo mataqaanaa wax wada qabsiga aad horkacdo ilaahayna waa kugu mataqaanaa garab galay taasi bay mataqaanaa sharaf badan ku yeeratay waxaan leeyahay waana meel bannaan oo weyn oo baahi badan loo qabo hawshaas inta badan uu tafarruq oo hawsha wad insha Allah nin dhalinyaro baad ka tahay meelo badan baad wax ka arkaysaa laakiin waxa badan ay qabatay xagan kale ka qabatay ayaan leenahay hotelkaas kuwa barakallahu fiik dhinaca kale farshaxanimada iyo transparency ama waxaan leeyahay daahfurnaanta waa waxa lagu aaminay mataqaanaa ay dadku kugu soo xirmeen saasad si cilmiyeynaysa insha Allah shirinkii wara ku soo galayba waad ka waramaysaa dadkuna saasay kugu jeclaanayaan ay kugu wadayaan halkaana ka sii wadbaan leeyahay waxaan marka labaad leeyahay markas bay way kani masjid kaliya maaha maradu marcaamada quraanka leeyahay oo xamaamadii leeyahay oo mari la seexanayay leeyahay oo masali lagu tukanayay leeyahay xarun weeye waa xaruntaas ilaalin bay u baahan tahay rasuulullah baad marka hore ilaahay baa mahad iska leh inagu kulmiyay gurihii ilaahay ka mid ah oo waliba maalin barakaysan oo maalin jimco ah in la daafuro ilaahaas mahad iska leh waxa kale oo aanu mahad celinayaa intii ka qayb qaadatay masaajidkan dhismihiisa iyagoo sadaqa jaariya ula niyooday inuu ilaahay ka aqbalo hadday dhul bixiyeen iyo hadday lacag bixiyeen intaba iyo hay-adda hadda uu awalba samafal u ahaa cabdimaalik magaciisu wuxuu ku baxay samafale cabdimaalik dee falihii unbuu ka gooyo samihii unbuu la hadhay marka hay-adda uu maanta u walqalayna waynu la shaqaynaynaa waana baarigaynaa inuu ilaahay hay-adda uu barakeeyo waxyaabaha khayrigaa badan uu qabanayo ama uu dadka caawinayo ama ceelasha uu qodayo masaajidda uu dhisayana inuu halkaa ka sii kordhiyo runtii anigu laba arrin u ban xusaya labada arrimood waxa weeye waqtigaa kooban maxaa hirgeliyey masaajidkan markaskan intaa leeg waxaa hirgeliyey kow dadku hadday wax isku darsadaan ama social media ha lagu ururiyo ama si kale ha loo ururiyo waxbay qaban karaan wuxuu inoo sheegay maalintii masaajidka la bilaabayay dhagax dhigii waan joogay dadku way qariibsanayeen 15 kun uu nooga sheegay goobta qandaraaska masaajidka xisaabta marka lagu dhufto 10% bay ka tahay 9% baa lacagta maqnaa maantana wuxuu inoo sheegay lacagtii lacag ka badan inuu hayo oo sarbalaasa dheeraada waxay muujinaysaa dadaalka iyo haddii ilaahaydnkii wax isku darsigu in wax badan lagu qaban karo waxa kaloo runtii iyana xusid mudan oo masaajidkan hirgeliyey ammaanada waqtigan dambe ammaanada ummadda aad bay u liidataa ammaanadu waa muhiim cidda gacantooda wax galaan inay wixii sidii loogu talagalay u fuliyaan iska badaaya lacag dheeraada ayuu sheegay oo soo hadhay marka runtii hay-adda samena waynu u ducaynaynaa waxaa mahad leh ciddii hawshan sababta u ahayd hadday hay-ad tahay hadday shicirka tahay hadday debad iyo gudaba tahay ilaahay baa ilaahaas ku sababay ee arrinkaa karinsiiyey ee waafajiyey baa mahad leh iyaguna mahad bay mudan yihiin kolley ka wasaarad ahaan waa waajib meel kastoo munaasabado diinayaba inaanu annagu furo markaa horta masaajidkan uu furayey waa masaajid kusoo biiray gobolka Burco waanu soo dhaweynaynaa aad iyo aad baanu soo dhaweynaynaa waa masaajid si hagar la'aan loo dhisay si hagar la'aan xisaabtiisa looga warbixiyey weli masaajid sidaa yada wax lacagtaas hadhay oo lacagtaas aanu hayno oo waxaas aanu qabanay ma jirto masaajidda waan iska furi jirnay
marka waxaan leenahay ilaahay maalkii wax caqligaba halaayisi kordhiyo mar hadda wixii daacada ka sheegteen oo wixii xisaab wixii soo haray wixii kale baa sheegteen masjidku wuxuu leeyahay macno guda ballaaran waa xarunta islaamka waa meesha laga hogaamiyo ummadda islaamka xilligii nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu ahaan jiray goobta wax lagu barto wuxuu ahaan jiray goobta lagu cibaadeysto wuxuu ahaan jiray goobta lagu shiro wuxuu ahaan jiray goobta masaakiinta laga caawiyo wuxuu ahaan jiray goobta ciidamada laga abaabulo wuxuu ahaan jiray goobta martida la seexiyo wuxuu ahaan jiray meesha xataa dhaawaca lagu dhaawac tiro taariikhda akhriya iyo siirada way ka buuxdaa markii dambuun baa laynagu yidhi masaajidka waa lagu cibaadaystaa waa laga dareeraa waa lagu tukadaa waa laga dhaqaaqa gaaladu waxay ku indhakuushaan masaajidku inuu salaad keliya noqdo waayo macnayaashii kaloo dhan baa meesha ka baxaya waxay ugu talagalaan in salaada ka horna la furo salaada kadibna la yidhaahdo waa la xidhayaa ee soo dareera nidaamkaa hadduu ku noqdo wuu macno beelaya waxay ahayd halkan laga caawiyo masaakiinta waxay ahayd dhallinyarada in wax lagu baro waxay ahayd halkan in guddiyada xaafaddu ay fadhiistaan xafiisyo kaleba loo baahna hay-adaha loo baahna waayo halkanaa hay-ad ah haddii halkan hay-ad laga diyaariyo wax walba way gaadhaysaa haddii cabdimaalik inoo sheegay in masaajidkaa dhan baraha bulshada laga dhisay iyo waxa ku xeeranba faa'iido badan baa ka soo baxdayoo barihii bulshada ee loo joogay doqonnimada iyo cantarabaqashta iyo afxumada iyo dhaqanxumada in xaggan kale loo rogi karo oo laga caawin karo masaakiin oo dad buka laga caawin karo waanan ogey dad badan oo ka caawiyey cabdimaalik ka mid yahay oo macaahid laga dhisi karo oo masaajida laga dhisi karo oo wax laga qaban karo marka haddii la moodayo un laygta ii saariyo sheerta iigu dhufa iyo baraha bulsho meel fog gaarsiiya iyo khayrkiiba meel fog la gaarsiinaya xaggana waa loo dhigi karaa marka waxaan doonayaa inaan cod dheer ku idhaahdo war waxaad xumaanta ku raadinaysaan ee cawrada la muujiyo ku raadinaysaan ee hadalka xun ee dalabta la ku raadinaysaan ee isku dirka ku raadinaysaan ee wiilasha iyo gabdhaha iyo cawraadka lagu raadinayo wanaagana waa lagu helaa bal iyadoo ka wanaagsan baa la helaya marka waxaan doonayaa inaan idhaahdo walaalaha waariya dariiqu idinka lumine halkanay ka dhowday nin baa laga hayay halkanay ka dhowday tolkay way hagranaya war waxaa raadinaysaan ba halkan uu ka dhowiyey khayrkii halkan uu ka dhow yahay masjidkana waan baarikaya dee reer burcana waa waxbaa la isdheeriyo annaga magaalada hargeysa iyo dad badan baa na dheertiin dadka na dheertiin waxaa ka mid a sheekh faysal iyo cabdimaalig iyo insha allahu laakiin annagana waxaan heli doonaa waxaan horta ugu horreyn leenahay ilaahay ha ka aqbalo xaajiyadda dhulka bixisay ee maalka faraha badanna bixisay inankeeda ka dhintay inuu u niyeysay ilaahay ha ka aqbalo waqti joogto oo ilaa qiyaama saaca u socdana allaha uga yeelo marka labaadna waxaan leenahay dadkii ka qayb galay ee kii la yidhi wuxuu kaga qayb galay doolar wax ka yar iyo kii xoolaha badan kaga qayb galay wana iyagana allaha ka aqbalo miisaanka xasanaadkana loo saaro wixii ay bixiyeen ciwad khayr qaba allaha ugu bedelo masaajidkan dadkii dhisay iyo dadkii u socday iyo kuwii dhulka bixiyey iyo shirkaddii dhistay intaba khayr weyn ayaa maaragtaa magaalada ku soo kordhiseen cabdimaalik muuse coldoon inankaa abtiga aanu ahayna ilaahay ha barakeeyo aamiin ii dhaha hal mar runtii waa shaksi tamar weyn iyo dadaal weyn ilaahay subxaana wa tacaala uu geliyey marka haddii wixii lagu qabqabsanayay iyo saxaafadii iyo wuxuu iskaga soo leexday oo masaajidkaa ilaahay iyo khayrkaa haddeer uu hay-ad u samaystay waxaanu leenahay war cabdimaalik ha la nabadgeliyo oo maaragtaa khayrkaa uu maanta u dhaqaaqay ha lagu taageero ha lagu garab istaago taana intaasaan leeyahay waxaan u mahadnaqayaa ilaahay subxaana wa tacaala noo suuro geliya haddaan nahay shirkadda sabawanaag guddoomiyaheeda inaan masjidkan dhisno ka qaadno dhulka gaadhsiino marxalkaa uu maanta taagan yahay awooddayada iyo quwaddayada kuma aanu hirgelin se laakiin waxaa iska lahaa awoodda oo na siiyey allaha subxaana wa tacaala qaadirka ah allahaasaan u mahadnaqayaa in badanna waan u mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa lacagta lagu dhisay allaha soo ururiyey ee awooddaa bixiyey dadkaa ku ijbaaray inay bixiyaan lacagta waxaan kalean u mahadnaqayaa hay-adda khayriga ah
ee la baxday sama ee noo dhiibtay shaqadan gacanta noo gelisay ururinta lacagtana dulqaad iyo samir u lahayd annakana xilliga aanu wadnay aanu la rafanayna samir u lahayd allahaasaan u mahadnaqayaa waxaan alle ugu mahadnaqayaa allaha samirkana siiyey sanadii 4 bilood ee uu soconayay masaajidku ee marba uu istaagayay marna aanu wadnay samirka ilaahayna siiyay baan ilaahay ugu mahadnaqaynaa anahay shirkadda gudoomiyaha shirkadda Saba Wanaag waxaan ku wareejinayaa furaha hay'adda khayriga ee Same gudoomiyaha Cabdimaalik Muuse Coldoon الله يجزاكم الله خير